ururka horumarinta guddiga horumarinta iyo baraarujinta bulshada oo la soo gaabshay waxaa laga yaabaa ooda dhexda ku jirta inaad erayada aan sheegayo ka dhex weydiiso guddiga horumarinta iyo baraarujinta bulshada horumarinta ayay xarafka labaad ka tahay erayga horumarinta ayaa xarafkiisa labaad tahay marka marmarbaa markaad magac bixinaysid magacu ama wuxuu ka yimaadaa googooska xarfaha magaca guud ama mid aan intaba ku jirin oo gooniya oo loo soo qaatay ayuu ka yimaadaa marka halkaas ayuu kala soo baxay magaca gog uu ku yimid halayskii hore wuxuu ahaa arrimaha inta horumarinta waxaan ka qayb gelin inay gun yihiin wixii horumarka ka qayb galaa deegaanka uu joogo meel kastaba ha joogo inuu gob yahay horumarin nagu cusbayd bay ahayd wadda 260 kilomitira ayaa bulsha u istaagaysa oo ay jeebkooda ka maamulayaan oo ka dhisayaan wax caqliga geli ka weyn bay ahayd in dad badani isdiidsiyo ka maago yani waxa la yaab lama ahayn waayo dawlad baa fulin kartay hawsha noocaasa ayaa la qabay oo adduunka la kaashanaysa ayadoo dadkeedu awood ay ku fuliso ma lahayn ayaa fikir noocaasa la qabay qiyaasta injineerada caalamiga ay ku qiyaaseen wadadaas 28 milyan inay ku baxaysay qiyaaseen injineerada Soomaalida waxay qiyaaseen 13 milyan markii barnaamijkan uu curanayay waxaa uu ka horeeyay tijaabo yar oo gaalkacyo lagu sameeyay qolaa dhistay wadadan horta 5 star hadda aan fadhino horteeda ahayd waxay ku ekayd ama ku hakatay hotel embassy isbitaalka oo rajo weyn laga qabay inay gaarto ma gaarin lifaaq yar baa u gudbay embassy ka gudbay oo al-shacab gaaray waxaa lagu fakaray markaa in isbitaalka la gaarsiiyo oo 1 kilomitir iyo bar lagu daro intaa la sameeyey tijaabay ahayd intii hore hay'ad baa dhistay laakiin inta dambe bal in dadka la tijaabiyo inay ka qayb qaadan karayaan halkaan iskugu nimid hoolkan waxaan wadadii baa la ballaarinayaa waxaan geenaynaa isbitaalka waxaa la rabaa in laga qayb qaato lacag 43 kun oo aad iyo aad runtii noola badnay ayaa reegaalkacyo khayr allah siiya ka soo ururtay waana middan la gelisay rajada ah mar haddii magaaladii hawsha ka bilaabanaysay dadkii joogay marka loo sheegay in wadadii ay faa'iidada ku arkeen inta al-shacab iyo u dhaxaysa 5 star ama al-shacab iyo u dhaxaysa 5 star iyo u dhaxaysa Istanbul markay arkeen quruxda ay soo baxday ayay inay sii dheeraystaan jeclaysteen dibka lamaana kulmin hawsha ayada ahayd si wanaagsan bay ku bilaabatay laakiin siday ku bilaabatay waxay si iskaa wax u qabsaa oo qof walba ka qayb qaata gabdhaha dahabkoodii dhiibay khayr allah siiyo agooma kuwa haysta oo wax yar haystay carruurta u hayay ayaa yidhi waalidiintii ilmaha ka dhintay aabahood baan u niyeysanaynaa ha lagu daro qof walba oo muraad lahaa waxuu la baxay si wanaagsan oo qurxoon ayay ku dhammaatay kii iska rogo lahaa iska rogihii buu keenay qalabkii hawshii hore qabanayay oo ahaa qalabka allah u naxariistay cismaan caata oo shaako ayaa hawsha fulinayay waday shidaalka iyo shaqaalaha waxa ay cunayaan ama ay maalmaha ku noolaanayaan ayaan bixinay waxaa naga baxday oo lacagtaa ka baxday 11 kun oo shirkadii dhisaysay hay'adii dhisaysay wadada waxay ugu talagashay 7 mitir balaceeda wadadan hadda 5 star hormarta qoladii dhisaysay 14 bay ka dhigeen qara la siiyo shaako ma jaweenay gudubkii dhisayay
lacagtii waxay kaga go'day markaa embassy waxaana ballantu ahayd in la geeyo al-shacab lacag 11,000 ayaanu shirkaddii u gudbinay in ay sii dhammaystiraan 7 mitir waa idinka arkood hal dhinac ayay ka dhisan tahay ilaa al-shacab bay laami ka tahay hadalkii dadka aan u bandhignay markuu keenay in lacag la baxsho waddadiina ay fushay ayaan qiyaasnay inta halkii kiiloomitir lacag ku baxaysa 25,000 oo kiiloomitir baa halkii kiiloomitir 25,000 oo dollar ayaa halkii kiiloomitir ku baxaysa laakiin mid baa naga maqnaatay oo aanan xusuusan qalabka anagu ma haysan iska waxba qabsaana loo siiyey iska rogayaasha anagu ma lahayn iska waxba qabsaana loo siiyey shaqaalaha intooda badan iska waxba qabsa ku shaqaynaya waxaan sawiranay waxaasoo dhan intay noo dhaqaaqaan oo aan tagno wisil inay noo shaqaynayso ciidda wisil iyo u dhaxaysa gawaan ama wisil iyo hobyo u dhaxaysa inay midda gaalkacay la mid tahay in kale ayadana aqoon umaana lahayn inta kiiloomitir ee dhulkaan adag ee gaalkacay ka jirta in ay xaggaa ka jirto ayadana aqoon umaana lahayn saan baan tagnay intaanan soo bandhigin fakarka aan wadno waxaan soo aragnay dhulka waxaan raba caawa in la saaro burburka waddada oo cod lahayn boholo iyo qaxaabo baan sawirkooda kaan waxaan u aragnay inaan dadku naga qaadanaynin sawirka aan kiskeenay waayo boholaha jiraahay waxaa dadka inta reer magaalkaahay u arkaya inay tahay boholihii filimada kaabooyada lagu dhigi jiray ee Texas inaan soo sawirnay oo soo koobi karay waxay keentay inaan dad la yaqaan aan boholihii dhex gelino si ay dadku wallahi hebel baa ku dhex jira waa Soomaaliya boholi waa deegaan la yaqaan markaa loo yiraahdo laakiin haddii bohol iska sawirtay aragtay nalka waa ka dhisan kartaa daabid laakiin waxaad duubanaysaa malaha kaa madoobaanay sidaa bay watay sawirkaa ninkii soo qaaday oo rabay inuu waddada la dhammaystirto ilaahay baa jeclaado waa dhinta allah u naxariiso nin alla shay u ahaa cabdullaahi maxamed shuruuc la odhan jiray cabdullaahi maxamed shuruuc nin kaloo isna waxaan shaqaalaha naga dhintay ninkii D8ka waday ee gaalkacya nala dhisay geeriyada alag baa loola jiray isna waa dhintay allah u naxariisto dadkii wasiil nala aaday ma noqon markaan wasiil tagnay oo aan boholaha soo aragnay oo aan ciiddii aragnay inay ka duwan tahay tii gaalkacyo waa ciid sidii sokortii oo kale hadday biyo taabtaan milmaysa oo degaysa wadiga arkayo way go'oday biyaha gawaan ka yimaadaa gooyey meel yaroo ceega la yidhaahdo ayaa u harsanayd oo hadday ayaduna go'do ay ahayd hobyo iyo allah u naxariisto iyo wixii yani wasiiliya ka jira qalabkii ayaanu qoladii qalabkaan iyo qalab baan u baahannahay oo shaako qolo kale ay jirtay ayaduna hobyo sii boortay qalab soo gateen oo dekad rabay inay dekadda wax ka qabtaan markay gaalkacyo keeneen awoodi kari waayey inay gaalkacyo gudubto oo ay tagto meeshay u wadeen hobyo ila waddadaasaa ka sokaysa meel ay mari karaan qalabkaasi ma jirin baabuurka waa baabuurka sawirka qaadayay qoladii bakhaar bay iskaga xireen garaash weyn bay ku xireen qalabkuna wuxuu noolaadaa marka lagu shaqeeyo wuu daxalaystay waa la heshiinay qolooyinkii waxaan yidhi qalabkaan rabnaa inaan ku shaqayno markii hore iskaa xogasaa noo siiseen laakiin hadda waxaan rabnaa qalabkii inaan qaadno oo laba qaybood baan ka dhignay qaybta u adag ee u dhibka badan bal horta inaan xoogga saarno oo ah 60 kiiloomitir ee wisil ka bilowda ilaa hobyo taga maxalii maya hawl ganacsi bay noqonaysaa waa inaan ka wada hadalnaa waxaan u tagnay qoladii kale hobyo saasi leh
waxaan idhi waaya waxaan ogolaanaynaa boqolkiiba 15 inta xamar ee qalabkaasi uga shaqeeya D8 oo kale saacaddii maalintii wuxuu ku shaqeeyaa $120,000 iyo wuxuu ku shaqeeyaa 800 waxaan intay ku shaqeeyaan boqolkiiba 15 baan siinayna inta kalena sadaqaysta la waxaan ka shaqeynayna waa wadadii anagu af baan haynaa iyo xoogaaga yaraada reer gaalkacyo loo gunteen oo lacagta dhowr iyo 13 milyan waa loo qiyaasay in wadada lagu dhisay wana la qaateen inta yada hawsha wada aqoon wada looga shaqeeyo qof leh ma jiro وهي كعبان جعليسنين وحقبا لكن قال كل أقوم تعمل لي ماتي هذا مركز هذا كمان دقائق وهي هاوي يكمل لسوم لكن وحول التوكل بيئة وباهتها وضد شوكتان إن لا رشيو صدق مرحلة أي مرتو مرحلة كواد أولوك أطفال يسمرك جيرة شرطو البلاريسو عيد لمتى بعد كقاعد ساير عيد هذاك ينرجع بعد كل شوي سا مركا أكون شفته وعركاوة ساعات رشيو ليسا مركي كففته أياد مرة نسا جرين الكي رولك وقت كيسا باكو براعيسا كدي بعركاوة كلا وارشيو ليسا جرين بامرنسا رولا وضو بامرنسا عركاوة اللي لو أنت لهيك بامرنسا أنت بيه وباهت ولو كان انقلب كلا هذا لينو كوح بويد الرومان طبعا هو مهد علمي يعني إذا كسكو قولها ديجان قال كعيو و عرسي مدحدوية ما يمكن قولها ديجان كل ثلاث جود بيان تكون بحضر بويد دي كلية أو إلهاين هي نوسو الجيل أيوة عندي الله وحول عقل كل ما نشين أيضا بعديه وما قال لك يعني وعندنا كوبهنا أيام لوري أيضا بالكورسنا وسعيد كم مغطينا هول وسوق يعني من اللي يراها مرضى بهول لوري وحولي وهذا الجميع وأبو المكتئب لكن وحوين بين نقط إلهي جوان بين وحنا جالسين hawsha alla bilaabaya ee ku bilaabayso oo qalabka dadku leeyihiin marka ay fakaraysa inay hawl bilowdo badeen iyo yaamba iyo garweyn bay haysatay wax qalab kale ma haysan 260 kilomitir ina dhisteerta 13 milyan lacag ay ku baxayso shil la hayaana ma jiro Allah oo naxariistay daayir gudadooda ayaa baabuurkii u horeeyay oo kale oo yiri odayaashu كل وادانا يعني أنت أكيد دارها يعني باوري وصعدان ويان بدر يبدل كي يقولون تبقاتان الله سيء سانكي قلب كمان رجلي لما يكون يافر تومكي ريه البرنامج كوها قال كعيو كده وريه يد ويا غادي سنة كاس أو يكون يافر تومكي لما يكون يشان يتومكي بلوجيسي بشي ثوب يقولي تضوي لا تكي أيام وحجرت دقمة قال كعيو هل دورلو